ولا قاطع سمانا ولا رشا ورصعد كصومالية سلطان مدينة وسببا صهي ولا قاطع سمانا ولا رشا ورصعد كصومالية سلطان مدينة وسببا سلطان حيدر وصوله براوي سكديدا صونها قلوين يغبوبوين سلطان كي وسريو سلطان حيدر وصوله سامكات كماملكا فيدرال كينا صومالي يسوف يسلهايو سلطان حيدر وصوله سامكات كماملكا فيدرال كينا صومالي يسوف يسلهايو سلطان حيدر وصوله سلطان كينو أدوا ولي دوا أمو سيد فقيو أدوا ولي دوا سجدي سلطان كينو أدوا ولي دوا أمو سيد فقيو أدوا ولي دوا سمجل سلطان هيدر أدوا ولي دوا سايتي كونفور قلبي أدوا ولي دوا سمجل سلطان هيدر أدوا ولي دوا سايتي كونفور قلبي أدوا ولي دوا كنت أودن كوشي سلطانتي قلويني كنت أودن قيشي سلطانتي قلويني كنت رير براوي كشوشو أضوى أموسي فقيه وجدي سلطان كاينو kusoo dhawaada som tv Soomaali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsane suldaanka guud balweynta Tunishan gama Suldaan Haydar Suldaan Suufi Suldaan Munye Dheere oo maanta uu ilsa ku casuumay bulshada degmada Barawe oo isku jira nabadoono siyaasiyiin culamaa u diin ururka haweenka ururka dhalinyarada degmada Barawe iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kulankan ayaa looga hadlayaa sidii loo xoojin lahaa amniga guud ee magaalada Barawe maadaama ay food nagu soo hayso doorashooyinka ilaahay ma hadlay alxamdulillah aayadaha quraankan ku furayna shirka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كل سلطانك مالمها بوحكوسنا دقمة برابة كلهم كان مانت أضياش دقنك iyo haweenka ururka haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ciidamada saraakiisha amniga iyo siyaasiyiin halkaas ugu yimaadeen ujeed kale ma ahan suldaanka
oo dadkii deegaanka odayaasha iyo saraakiisha ku martaqaaday hoygiisa waayo halkan waxaan isugu nimid ujeed kalena ma ahan saan dareemaaho deegaanka maadaama asaga hadeer suldaankii ugu sarreeya oo deegaanka jooga in deegaankii isugu yeero waa waajib asaga saaran waaye sababtoo qofkii u koreeya markaas deegaanka in isugu yeero waa waajib asaga ilaahay saaray qofka annagana aadan ugu faraxsannahay in suldaankii hoygiisa aan maanta nimaado oo aan si sharaf leh ku qadayno isku aragno isku warsanno taa markaa halkaa ugu gudbo qof walba imaankiisa geliyaan rabaa baraaba waxay ka mid fi 6 ayaamin thumma stawaa cala alcarshi 6 maalmood ilaahay koonka ku abuuray qayb ka mid ah baraawata وبركاته بعد السلام سلطان حفلدان قروحدا بدن له ee maanta inoo fidisay meeshii laga rabay in anagu aan fidino adigii oo madaxii ugu sareeyay dhaqanka ah aan noo fidisay waa kaaga mahad celinaynaa marka koowaad waa kaaga mahad celinaynaa mar labaadna waa kaaga mahad celinaynaa suldaanku horta sidaad ogtihiinba waayahan deegaanka waa ku sugnaa si heer saraaha loo soo dhaweeyay wada tashiyo badan oo deegaanka uu la tashanayay odayaasha bulshada noocaheeda kala degan buu u joogay maadaama baraawo ay tahay meesha deegaan doorashada koonfur galbeed qaybta labaad ee lagu qabanayo ee baraawo ay tahay sidaa la ajligeed suldaanku waxa weeyaan waayahanba kulankiisu waa socdeen suldaan waxaan ku leenahay waxaan kaa codsanaynaa annagoo afka ku hadlayna degmada inaad xildhibaanada aad soo saari doontid ee noqdaan kuwa deegaanka wax u qabanaya aysan noqon shakhsi markii la doorto banaanka iskaga baxaya suldaan ku soo dhawow waa deegaankaagii waa meesha odaga u ahayd annagu odayaal ahaan waa ku garab taagannahay har iyo habeenna taladaada iyo amaamiirtaadaan ku shaqaynaynaa sababtoo ah dhaqanku waa jaranjaro madaxa ugu sarreeya deegaankanu ee dhaqanka ah waa suldaanka suldaan xeedar weeye sidaa la ajligeed annaguna waxaan nahay odayaashii hoose dadkuna inay amaamiirta kala qaataan deegaanka lagu kala dambeeyo lagu kala waxaysmo ayaa loo baahan yahay suldaan waa ku ayisannahay saldanada ilaahay baa ku siiyey 135 ilaahay baa kugu daray annaguna taasaan qirsannahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد marka ugu horeyso waxaan salaamaa suldaanka odayaalka dhaqamanka waxaan salaameynaa saraakiisha ururka hooyinka intii ka soo qayb gasho hadda fadhigan fadhida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan meesha waa meel xaflad oo ma aragta suldaanka asnoo yeeray oo dhammaan soo ajiibnay intii soo ajiibtan waa mahadsan tahay in ka maqanoo haddaan arko hayna ma jirto wax allaala wixii baraaba degan oo ma aragta qabiilooyinka odayaalkooda halkaanay ku idin wax hadda maqan oo ishayda hadda dii raacsi hebelaa maqan la leeyahay meesha ma ka muuqdo dhammaan ka soo qaybalayaashu waa salaamantiin marka aniga wahi oo dadka soo mara dhan taas waa dhammaad aan meel kala galay marka horta adduunku waxaa ugu weyn amniga ugu weyn dadkan dhan had meeshan ku soo aruuri oo wahi fadaayan oo sheegayan habeenkii nin kasta gurigiisa seexanaa ku hurdaaya amnigaas ilaahayaa keene waxaa keene ciidanka oo nimankana keene marka suldaanka iyo dowladda waxaan u sheegaya ciidankeenu waa shaqaynayeen 100% u shaqaynayeen wixii oo banaanka lagu sheegay waa ka jiri male ciidankan ciidan la halka ma ah ciidan una dhaaf karna ma aha haddii ciidan la soo wadan ciidankaas naga joojiya ciidankan hanoo joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ka salaamaa suldaanka ee isugu timid intaan oo Soomaaliya oo oday dhaqameed leh oo saraakiisha leh oo hooyooyinka leh oo dhalinyarada leh oo ku soo booqdeen
martiqaadka sharafta leh oo maanta oo ku dhigay gurigiisa. Suldaan waa ku salaameynaa. Salaan bacdigeeda war inta miceed oo la dhihi lahay horteeyaa la yiri. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. أولا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان odayaasha dhaqanka saraakiisha amniga siyaasiyiinta ururka dhalinyarada haweenka dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waa idin salaamay insha Allahu ta'ala war wixii la dhihi lahaa hor baa loo yiri waa un macnaha isaga darso way wax kala maahan rag odayaal oo sharaf leh nabadoonna ka wada hadlay barnaamijkan soo dhameeyay wixii suldaanka loo dardaarmay lahaa waa loo dardaarmay wixii bulshada kale loo dardaarmay macnaha wax loo sheeglan waa loo sheegay insha Allahu ta'ala waxad aan ku saaidinayna ma jirto dhammaan waxa idin leeyahay kuwa macnaha inta war oo isdhaxgalka ama dadnimada ama wada noolaashada deegaanka ama nabdeynta sidii horeba loo sheegay kuwa qaat Allah naga dhigo insha Allah ta'ala warbadi wax faa'iido male السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. odayaasha dhaqanka suldaanka saraakiisha dhammaan waxaa idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga waa soo yareynaa wax weyn ma dhahayo waxa meeshan aan ka rabaa inaan dhaho suldaanka iyo taliyaha militariga masaakiintaas xaggaas lagu dhammaynayo in si deg ugu gurmudaan si degdeg ugu gurmudaan. assalaamu calaykum. siyaasiyiinta ciidamada ilaahay ku misamadiida ururka haweenka ururka dhalinyarada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xalfadan oo sharafta leh oo maadaama oo noo fidiyey suldaanka inta timid iyo inta joogtaba dhammaan wax maqan oo baraawo deegaanka sheegaya inay jiraan u maleymaayo suldaanka aad iyo aad uu ku mahadsan yahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wax kale isku wacay in waloosho lagu yahay amba niidoo lagu yahay suldaan waa u jeedaa unaka haddaan nahay shangamaas aadan yaraa noola hadlay waxaan kaa codsanaynaa inaad dhegaysata qabiilaha oo meesha deegaanka ah odayaashooda sidaad noo tixgelinaysa inaad u tixgelisid deegaankana gacan saar u lahaatid. wabarakaatu. awalan waxaan salaamaa suldaanka iyo saraakiisha odayaal dhaqameedka ururka haweenka dhammaan waa salaamantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xafladan oo aada u qeym badan suldaanka noo dhigay waxa waaye waana macnaha waa ku mahadsanyahay suldaanka annagana waa soo ajiibna maasha allah. taas waaye لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين صلى الله عليه وسلم. أما بعد waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka marsaraakiisha dhalinyarada haweenka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan rabaa inaan kelmateen aan idhaahdo waxaan rabaa horta waxaan soo ajiibnay mana xafladda suldaanka maaragta intii soo ajiibtay khayr allah siiyo. suldaan waxaa lagaa rabaa deegaanka waa deegaankaadii waxaa lagaa rabaa sinaan cadaalad ma aragta si furfurnaan iyo ma aragta tan waa adduunyo waxaa la rabaa sinaan iyo cadaalad aa lagaa rabaa iyaga waa lagu fadhiyaa intii ma aragta deegaanka ku nool mara mas-uuliyaddu cayaar ma aha. waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhammaantiin oo suldaamadu uu ugu horeeyo suldaanka guud ee baraawe ama aan odhan kara soomaaliya oo dhan buu u yahayba suldaan iyo salaadiinta iyo saraakiisha iyo gabdhaha iyo dhallinyarada intaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. waxa weeye waxaan aad iyo aad mahadgooniya u sii celinahayaa suldaanka oo maanta noo sameeyey martiqaadkan aad u sarreeyo oo isugu yeeray ummaddii ku noolayd ama dadkii ku noolaa
iyo saraakiishii iyo gabdhihii soomaaliyeed ee ku noolaa magaalada tan Baraawe. Anu waxaan oran karaa magaalada Baraawe waa sababta aan u leeyahana waxa weeye Baraawe taariikhda marka dib loo raaco waxa weeye magaalooyinkii ugu horreeyay ee maamul loo sameeyo. Waxaan anugu hayaa markay ahayd 900 oo sanadood taariikhda milaadiga ay ahayd Baraawe waxay lahayd maamul bay lahayd magaalo maamul leh. waxaan maleynaa waa tirsanaayeen magaalooyinka la Soomaaliya markaas maamulka lahaa. waxa weeye marka magaalo saas dadkeedu xadaarad ay u leeyihiin weeye. waxaa loo baahan yahay marka waxaad ka garanaysaana maantay nabadgelyada ka jirto. anugu gobolada Soomaaliya ama degmooyinka Soomaaliya waa soo maray dhammaantood. hadda waa tagay intaa waddanka joogay ilaa iyo Boosaaso baa iigu fogeyd meeshaan tagayay. waxaan ku tagay baabuur waxaana halkaas intaa u fiirinahay waddanka dhan ayaa indhaynahay. ilaa dalku waa wada Soomaali dadka ku nool waana dalkeenni. waxa weeye marka waxaan leeyahay magaalo sidaasoo kaleeta ama nabadgelyadu uga jirto ama dadkeeda ay isugu xiran yihiin waa yar tahay. markaan leeyahay waa isku xiran yihiin waxa weeye haddii aysan shacabku wax kasta waxay ka bilowdaan shacabka. shacabku hadduusan isku xirnayn dowladdu ama saraakiishu ma aysan samayseen nabadgelyo iyo amni ma samayseen. waxaa keenayaa marka leeyahay waa shacabka iyo mawjeeda dadka ku nool oo saqaafadoodu ka sareyso kana saramartay qabiil. taas ayaa marka keenayso. waxa weeye marka arintaas waxaan si gooniya ayaan mawjeeda magaalada tuulada Baraawe degmadaas ayaan uga mahadcelinayaa arintaas ay mawjeeda ay khaaska u ah. waxa weeye suldaanku horta waxa weeye suldaanka salaadiinta markaan leeyahay salaadiinta ninkan waxa weeye suldaan Haydar waxa uu ahaa salaadiintii ay la yiri xeradii ay qaxootigu ku xareysnaa la yiri ilaa qofka ugu dambeeyo ayaad noqonaysaa ilaa dadkaagu ay dhoofaan oo wadamo hadba qof looga raadinayo. haddee ninkii sidaas sameeyey marka taasaa ka cadaynaysaa inuu dadka dhan u ahaa suldaan u ahaa. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. horta suldaanka si qaasan u salaamaya suldaanka guud ee deegaanka Baraawe. ciidan u aqoonna lama arko. waxaan kaloo ka uga mahad celinayaa haddii maanta uu deegaankii dhaqankii oo dhan oo deegaanka Baraawe iyo amnigii guud oo u yeeray oo qada sharaf u sameeyey ayadana aad ugu mahadsan yahay. waxaan leeyahay suldaan degmada Baraawe inaad suldaan ka tahay cid macnaha hor joogsan karta oo dhihi karta kama ihid ma jirto. waxaan rabaa inaad gacanta ku qarato. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد saraakiisha amniga degmada Baraawe odayaasha dhaqanka hooyooyinka siyaasiyiinta aqoon-yahanada dhammaantiin waxaa idinku salaamaya salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. runtii maalintan jeeg maalin farxad wane odayaasha dhaqanka saraakiisha hooyooyinka dhammaan bulshada degmada Baraawe ku qayb galeen soo ajiibeen anankii faraxsan mahad elin gaar ah i mahad eliyay
midda kale degmadan baraawe hidis ogtin degmo khadiimu sida injineerka sheegay 900 waqtigaas milaadiya ayaa la aasaas ilaa al'aankan hadda may taariikh ahaan oo baraawe 121 sano wana la joogo waqtigaas ilaa hadda marka dadka deegaankana dad faylow dad oo kulliyo oo wada jir ahanu dad isjecel ahan marka dad oo dowladda jeel ahan dad walaaltookiyo jeel ahan marka intaas horta degmada baraawe iyo dadkii ku nooleen ayaa maana sifooyinkan aan sheegay iyo maana suubsadeen midda kale degmadan mar dhow haddii ilaahay nacam dheh doorashalkii uwadaay dadkii kuraastiyo oo inti la sheenayo degmada baraawe oo shabeellada hoose ka tirsaneen koonfur galbeed ka tirsaneen maana may soo dhawayayne gacmo furan iyo qalbi furan iyo walaaltinimo iska dhawayayn kulliyo intii maana kuraastokiyo intii yaale midda kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha aad iyo aad isaguna may hambaliyo iyo maysaki farxad iyo taageer imuujiyayna marka degmadan baraawe isku mas-uul ah koonfur galbeed dhan isku mas-uul ah usun may sheegayne maana un garabka taagina garabka joogna awaamiirtana rahayna awaamiirtana fuliyayna marka dadkii dhanba oo odayaasha maana ku nooleen iyo shacabka degmada baraawe ba kullikii raacsinan koonfur galbeed raacsinan awaamiirta koonfur galbeedna mana diyaar ahan inay fuliyaan haddii aan arinta maana wal kale ki dara runtii ana may ahee suldaanka guud suldaanka soomaaliyeed suldaanka degmada oo deegaankan degmada baraawe ah ana anoo dadka kala biyayna dadka kulli isminan halkola ii ahan nabadoonadana guud oo deegaankan kulliyo iyo wada jir ahan go-aankii soo saareen aan diyaaru inaan fuliy marka hidaas ogaada marka insha allahu wa tacaala wal allaale wixii deegaankan la ibaahana maana diyaar inaan un fuliyna wada jir maana inaan ki fuliyna deegaanka maana halko inaan nagadan maana insha allah taaski dadaalayna marka haddii tafaruq jir haddii arin maana dadiyo maana suul fahmi jir marka insha allah kulli isku saarna haddii agaray laakiin ma bajiruba hadda ma bajiruba deegaanka kulli halko wane marka insha allahu wa tacaala diyaar ah marka inaan arintiyo khaasatan nabadoonada guud iyadoo aldhaan hebel deegaanka baraawe nabadoonada walaagay awaamiirta iyo soo saareen soo baxeen suldaanka kii fuliy wane taas ogaada maxasintan insha allahu wa tacaala kulli san iskii mahad eliyay wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu